السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كلانتي wanaagsan asxaabay meel kasto naga daawareysaan xaaladda gobolka bariga dhexe maxaa ka soo kordhay haddaba qodobada barnaamijkan idinku hayno waxa ka mid noqon doona Iiraan oo la sheegay inay heegan gashay iyadoo warbaahintu ay ka hadlayso in dabayaaqada maalmaha soo socda ee nasashada toddobaadka laga yaabo in Trump uu amar ku bixiyo in dib loo weeraro Iiraan. haddaba maxaa isbedelay wararkii ugu dambeeyay ayaan barnaamijka ku soo qaadanaynaa. Kuuriyada Koonfureed oo sheegtay markab ay leedahay oo dhawaan lagu weeraray marinbiyoodka Hormuz markii ay baaritaan dheer samaysay inay ogaatay in aanay Iiraan ahayn cidda weerarka ku qaaday. haddaba yaa weeraray markabka Kuuriya ee marayay Hormuz tafaasiil iyana sheekada ku saabsan waan idin hayaa. qodobada ugu muhiimsan ee Iiraan ay miiska soo saartay inay mar kale dib ugu laabato wada hadallo dhexmara iyaga iyo Mareykanka oo la soo helay. qodobadaas ayaa la sheegay in ay keeneen in markaa Mareykanku uu aad uga carooday waxa ay samaysay Iiraan. dhowr qodob inay Iiraan ku xirtay shuruud ah inay Mareykanka la fariisato. wararkaas markaa qaarkood waa la waday maalmahan laakiin hadda Al Jazeera waxay leedahay qodobada miiska u saaran Iiraan waa intan. Pakistan waxaa loo dhiibay intaas, Mareykanka waxaa la gaarsiiyay intaas. haddii dhowrkaa qodob ay Mareykanku fuliyaan inay Iiraan shuruud la'aan la fariisanayso Mareykanka oo markaa ay heshiis diyaar u tahay. haddii laakiin shuruudaha marka hore lagu fariisanayo wada hadalka aysan Mareykanku aqbalin inaanay Iiraan weligeed la fariisanayn Mareykan. haddaba shuruudahan marka maxay yihiin? waxaa leeyahay markii ay gaareen Trump wuu wareeray. haddaba marka shuruudihii waxaa soo helay xog ku saabsan arrinka telefishinka Al Jazeera. haddaba markaan idin tuso wararkii ugu dambeeyay sheekada laga qoray. Al Jazeera waxay leedahay shuruudo ilaa 5 ah ayaa ilaa hadda la helay oo ku saabsan in Iiraan ay diyaar u tahay markii shuruudaha Mareykanku ogolaado inay wada hadalka dib ugu soo laabato. qodobka koowaad in dhammaan dagaalka uu joogsado jiha kasta, macnaha fi kulli jabahaat waxaa laga wadaa ilaa meel kasta xataa Lubnaan midka ka socda inuu joogsado. qodobka labaad in cunaqabataynta muddada dheer saarnayd Iiraan la qaado. qodobka saddexaad in la fasaxo lacagaha Iiraan ee laga xanibay in loo fasaxo. qodobka afaraad in magdhow buuxa laga siiyo Iiraan burburkii dagaalkii ugu dambeeyay uu u geystay dalkeeda, in wixii dhibaato loo geystay magdhow laga siiyo. 5 qodobka shanaad inuu yahay in Mareykanku uu ictiraafo in Iiraan iyadu ay leedahay marinbiyoodka Hormuz. waa 5 qodob oo aan caadi ahayn. waliba midda ugu dambaysa Mareykanka midda dhibayso waa dowladaha dariska waa inaad aqbashaa oo ictiraaftaa marinbiyoodka Hormuz inaa annaga leenahay. haddaan rabna cashuuraha ka qaadaynaa, midkaan rabnaan u diidaynaa, kaan rabnaan fasaxaynaa. ictiraaf inaa markaa ka samaysid waaye Iiraan inay leedahay marinbiyoodka Hormuz. qodobka kale ee cajiibka ah ee ku jira waxa waaye in dagaalka la soo gabagabeeyo fi kulli jabahaat, dhinac kasta. Lubnaan meel kastuu dagaal ka socdo oo Iiraan dagaalkeeda la xiriira in la joojiyo. waa qodobka koobaadkaas. waa in Lubnaan xataa xabadda laga joojiyaa, meel kasta la joojiyaa. marka 5 qodob markii ay soo baxeen oo Mareykanku la yiri ma kula fariisanayno adigoo oon 5 qodob fulinin, ayaa hadda marka waxaa leeyahay ninkii Trump ahaa wax kale oo u dhiman male inuu qodobada aqbalo ama inuu dagaal qaado. labadaas wada kale saddexaad ma jirtaa leeyahay. 5 qodob inuu aqbalo. hadduu aqbalana macnaheedu waxa waaye Iiraan si buuxday dagaalka ugu guuleysatay. Mareykan waa jabay, dowladihii dariska wixii oo dhan Hormuz loo aqoonsaday, waxaas oo dhan waaye. taasna macnaha ma soconayso.
marka muxuu ku qasban yahay wadada u hartay oo dagaalka inuu aado taasoo ah iyada laftirkeedu arin qaraar laftirkeedu ma sahlana dagaal wax kasta laga heli karaa marka sheekadaas halkaas markay martay ayaa waxa la leeyahay nimanka Israa'iiliyiinta xogti markay heleen iyaguna heegan buuxay galeen waxay leeyihiin sabtida iyo xadda oo nasiinada toddobaadka ah inay markaa dhici karto in dagaal uu amro Trump wada kale u banaan male u fiirsada meel kale uu ka baxo male haddaba marka aan idin tuso telefishinka Al Jazeera wuxuu soo xiganayaa journalka liiraado Axios ee ka soo baxa dalka Mareykanka wuxuu leeyahay Israa'iil waxay sare u qaaday xaaladda degdega ah iyadoo markaa loo diyaar garoobayo inuu dagaalkii dib u bilowdo مسؤولين إسرائيليين يكون مريكنا أي ورجيسكو وكسو حكتي حالة دقدقة أيا لقليي إسرائيل وحانا لشيغي إن دقالك إنو بالوضوء قركا لو سهرين دبيا قضى التضباتك يدو ترام ومركا أمر دونو إن دقالك ديب لو بلابو وجد وسلسلة مركا اسكو حران شنطا قضب ميسكا لايماو ogolow waa kula fariisanaya hadii kale waxa qaadi karta qaad marka hadda marka Israa'iil marka waxa leeyahay shanta qodob suuragal ma haye soo socda marka iyadoo waxa leedahay heegan buuxaan galnay toddobaadka dabayaaqadiisa xilliga fasaxa maalmaha fasaxa inuu Trump amarka bixiyo ayaa laga yaabaa marka sheekadaas iyaduna soo korortay xaaladda Iran oo markaa cabsi jirta oo aad u adag ayaa la leeyahay dhanka kale war la yaab laha soo baxay Kuuriyada Koonfureed dhawaan waxa dhacay markab ay leedahay oo shidaal wada ayaa waxa lagu weeraray Hormuz dhaawaca loo geystay Iran lagu eedeeyay Iran markaas waxay tiri anagu shaqo kuma leeyin markabkaas waxa weeraray anaga iyo Kuuriya waa wada hadalnay حسابتنا قرب ميلا نلو ساري وافصحنا أنك إنت ويررتي لكن أنك ما كوريان كي مركا وحي بلابين باريتان كوريان كو ويبارين هذا وركي أقول ري كوريا وحي لذاي اتكالوا إيران ما وحنا ويرري إيران ما وحنا ويرري إيوا قولك لي إيضنا مارتي وكو دبجرنا warbaahinta Iran marka maxay lahaayeen Mareykanka weerar si uu marka Kuuriya ugu qasbo isbahaysiga Mareykanka ee Hormuz furaya inay ku soo biirto weena diida Kuuriya markii hore waxay leedahay okay waa kula shaqeynayna markii sheekadu aragtay dadaal uga gurad markabkeeda nugta laga galiyay meesha Trump iyo kooxdiis waa koox mafia lagu leeyahay ayaga jugta ka gilay haddaba markaan idin soo wararkii ugu dambeeyay sheekadan laga qoray Al Jazeera waxa leedahay weerarkii lagu qaaday markabkii Kuuriyada Koonfureed ay lahayd meel ku dhow Marebiyoodka Hormuz maalmo ka hor ayaa warar kala duwan ay ka soo baxayaan wakaaladda wararka Kuuriyada Koonfureed ee liiraado Yonhap ayaa soo xigatay mas'uul Kuuriyada Koonfureed waxay sheegeen in markaa laga yaabo jiha kale oo aan Iran ahayn inay weerartay markabkoodii xamuulka ahaa ee halka marayay ee shixnada waday waxayna yiraahdeen inay hadda wadaan talaabooyin diblomaasiyadeed oo ay si rasmi ah ugu tilmaami doonaan cidii weerarka ku qaaday markabkoodii xamuulka ahaa ee marayay marinbiyoodka Hormuz marka sheekada iyaduna waa waali halkaas ay ka socotaa Mareykan wax kasta waa macata saaxiibadiisii waa Kuuriyada Koonfureed waa saaxiibi Mareykan xirtiisa ku jirta jugtuna ka gelinaya marka hadda hawshaas iyaduna wararka soo kordhay ka mid tahay wararka kale ee soo kordhay maanta Khamiisa wararka cusub ka mid ah waxa weeye kulankii saddexaad ayaa wuxuu dhex mari doonaa maanta dawladda Lubnaan iyo Israa'iil sida la leeyahay أول لبا وريجو هرو ولا هذا الله يا نحمري واشنطن وكرر الدورة كلن كان ووريجي سدحات وحنا رجوا هذا حل الدورة حيسده تاجن مركب حلي محل حلا إسرائيل يحسب له جوكت سكوير إسرائيل لبا تنقف كل وادي دشي أفر لا تكي ساعة لا صراف حسب الله هنا وحي مربل با وير كوقع عيدا كإسرائيل
taangiya gubaan askarteela waa tii xalay barnaamijkayga aan kusoo qaadanay Netanyahu inuu maaragtay qolooyinkiisii wada hadal la galay amniga u qaabilsanaa iyadoo diyaaradda droonka laga qeelinayo marka maxaa ka soo baxaya shirkan saddexaad dadka wax falanqeeya waxay leeyihiin wax ka soo baxaya male dowladda Lubnaan ma dagaal kula jirta Israa'iil Hezbollah dagaal kula jirta marka maxay soo kordhin kartaa waxba ma soo kordhin karto haddaba markaan idin tuso wararkii ugu dambeeyay wargeyska la yiraahdo Haaretz ee ka soo baxay Israa'iil ayaa goordhow qoray warbixin uu leeyahay wareeg kale oo wada hadalla ayaa dhex mari doona Lubnaan iyo Israa'iil wuxuuna ka dhici doonaa Washington waxaana uu socon doonaa 2 maalmood ayay socon doontaa wada hadalladaas ay socon doonaan 2 ha socdeen ama 10 ha socdeen ay leeyihiin meesha wax natiijo weyn oo laga gaari karo ka soo bixi kara ma laha la leeyahay haddaba waxaa leeyahay maraakiib ay Shiinuhu leeyihiin ayaa hadda waxa ay bilaabeen inay ka gudbaan marinbiyoodka Hormuz iyadoo wada hadallo ay u socdaan Trump iyo Shiinaha oo markaa halka ay wada hadallo ka socdaan marka maraakiib dhowr ah oo Shiinuhu leeyahay ayaa hadda bilaabay inay ka gudbaan marinbiyoodka Hormuz ayaa la leeyahay warkaas waa cusub yahay dhanka kale waxa la sheegayaa Mareykanka wararka laga helayo Trump marka uu ka soo laabto Shiinaha inuu dib u bilaabi doono dagaalkii Iran ama inuu furi doono mashruuc dagaalka gelin kara kaasoo ah mashruuca xoreynta maraakiibta ku xaniban Hormuz kaasoo dhalin doona dagaal ay la galaan Iran marka wararkaas waxay aayeen wararkii intaynu barnaamijka ku jirnay nagu soo kordhay akhyaaray barnaamijkan waxa kii ugu horeeyay maanta oo khamiis aan idin soo gudbinayo like gareeyo share gareeyo barnaamijka meel kasto aad naga daawanaysaan inta aan mar kale barnaamij kale kulmayno asxaabay nabadgelyo